goobtan aan ku suganahay waa Hotel Cafe waxa ka socota munaasabad ay ka qalin jibinayaan arday aad u tiro badan goobtan umaan iman inaan soo bandhigo tirada ardayda ka qalin jibinaysa xafladan sidoo kale umaan iman inaan soo bandhigo luqadaha kala duwan ee barteen waxaan warbixinteena ku eegi doonaa marxaladaha kala duwan ee soo martay sawir qaadisto sidoo kale waxaan warbixinteena ku eegi doonaa caqabadaha iyo hanaanka ay soo mareen fotograafrada gobolka goobtan waxa ku sugan dhowr iyo 10 sawir qaade oo aan kala sheekaystay waqtigii ay ku soo biireen sawir qaadista haddaba imika si toos ah waxaynu u guda gali doonaa warbixinteenan iftiiminaysa sawir qaadista imika dhinacayga waxa fadhiya Bashiir Haarun oo kamida fotograafrada ugu cadcad magaalada Burco waxaad iga warantaa shaqadan aad hayso ee sawir qaadistu kulli waa shaqo aad u dhib badan qofka ku dhex jira ayaana dareemaya shaqadan iga waran suxufi iyo si dhagacad horta rumaantii shaqadan duruufo badan iyo hawlo badan horta rumaantii ay horta leedahay horta way jirtaa wallahi caqabad badan rumaantii xagga shaqada fotograafnimo yani waan kala kulmay kulli sida ma aha yani saxaafadu waxay leedahay anshax iyo asluub iyo kala dambeyn bay leedahay xaggan yani fotograafnimada ama xagga sawir qaadayaasha kulli maamuus iyo kala dambeyn iyo rumaantii ixtiraam horta kulli male tii sawirada ugu horeyntii aan bilaabay qaar rumaantii sawiradan markan aan u diray ka cabanayay edida sawiradan naga hagaaji kullu process wad maraysaa muddo intee lag bad ku jirtay horta rumaantii yaasiin dhagacad waxaan ku jiray xaggan shaqadan fotograafnimo kulli ilaa adigu 4 sano waan ku jiray kulli rumaantii kulli cidii garanaysa rumaantii fotograafida ugu horeeyay Burco ayaan ahay rumaantii tigii hore sawir qaadistu way yaraayeen laakiin waqtiyadan iminka la soo waqtiyadii ugu dambeeyay fotograafadu aad bay u soo badanayaan saameyn adiga ma kugu yeelanaysa haday noqoto xaggii shaqadaada kulli sawir qaadayaasha horta yani soo badanaya horta nin walba horta Ilaahay ba horta calafka u qoray horta waan jecelahay rumaantii inay kamaradu 100% soo bataan niyo wallahi kulli way iska badan yihiin caqabado aan kala kulmay muddo 2 sano kulli niyo shaqadan horta marka hore waa shaqo niyo nin mudakar inuu ka bixi karo oo niyo xil ka sax waayo shaqadan niyo kulli niyo carqaladeeda iska badan sidaas oo ay tahay niyo qof ayaad u shaqaynaysaa qofkii niyo wuxuu ka caawinayaa photographer hore liana bahashan imika niyo dadku way iska wada qaateen dad aan khibrad u lahayn ayaa iska qaatay oo dad aan xuquuqdeedii iyo xeerkeedii garanaya iska qaatay qof ayaad imika sawiraysaa qofkii wuxuu qoranayaa nin photographer hore sawirayga qaaday photographerkii hore sawiradii muusiinta markaad noodi kala baxsanaysaa marka waxaad noqonaysaa qof la aamini waayo qofka niyo intaad ku qancinayso ama sidii aad intay uga sheekeynayso niyo sidaa tahay iyo sad wax dirto qofkii aad is aaminsiinaysaa niyo waqti bay kugu qaadanaysaa horta yaasiin walaal sidaad aragto niyo horta bilicda gobolka waa muhiim inaynu bilicda gobolkeena kor u qaadno waa muhiim bilicda gobolka waxa uu haysta dhalinyarada hoteelo weyn baa ka dhisan hoteelada waaweyn lama ogola in sawir lagu galo waayo dhalintii waa laga hor istaagayaa xataa iyagoo lacag bixinaya ayaa laga hor istaagayaa inay hoteeladii sawir ku galaan imika Hargeysa wad aragtay hoteelo waaweyn baa ka dhisan hoteelada dhalinta looma diido saacada chance ka hayaan way galaan sawiraday ku soo galaan iyagoo faraxsan oo habiya bay ka yimaadaan inaga goboleedena wad aragto iyagoo xataa lacagtii qaadanaya ayaan haddana ogolayn oo ay ku cambusayaan dhalintii inay galaan hoteelkii ama ay ku aflagaadeynayaan yaasiin dhagacade wararka telefishinka caalamiga ah ee RTN TV gudaha Hotel Cafe ee magaalada Burco